Croatia waa mid ka mid ah wadamada ugu xooggan waqti xaadirkan kubadda cagta adduunka. Xulkan ayaa sheegta in uu soo gaaray finaalka koobka adduunka 2018 halka kan iminka soconaya ee finaalkiisa ay wada fadhiyaan xulalka Argentina iyo Faransa uu soo gaaray wareegga afardhamaadka isla markaana rajaynayo in uu noqdo xulka kaalin saddexaad ku dhameysta balse dagaal adag ayuu kala kulmayaa qaranka kubadda cagta ee Morocco. Wadankan ayaa ka qayb galay koobka adduunka markii lixaad inkastoo uu ku haray heerka afardhamaadka 1998 ayuu ahayd markii ugu horeysay koobka adduunka dhacdadan si rasmi ah ugu mid noqdo. xilligii ugu wanaagsanaa ee taariikhda tartankan meel wanaagsan uu ka gaara waxay ahayd 2018 markaas oo laga qaaday kama dambaysta tartanka. haddaba xulkan oo bandhig heer sare ku sameynaya koobka ayaa wareegii afardhamaadka waxuu guuldaro kala kulmay Argentina markii lagu xaaqay 3-0 ciyaar xiiso badneed oo ka qabsoontay dalka Qatar. waxaa ugu sii horeysay in wareegii 8 ay soo dhaafeen Brazil markii goolkulaad ku soo xaaqeen halka sidoo kale Japan rigoorayaal ugu soo adkaadeen, laakiin wareegii afardhamaadka ayaa 10-2 ay kala kulmeen xulka qaranka dalka Argentina. taasi waxay keentay in qarankan uu ka haro tartanka isla markaana hadda uu u diyaar garoobo in kaalin saddexaad ugu yaraan uu ku dhameysto, laakiin dagaalka ugu xoogan xulka qaranka dalka Morocco ayuu kala kulmayaa. waxaa cajiib ahayd in 2014 xulkani uu ku dhameystay markii laga hadlo ka qaybgalka koobka adduunka heerka gurubyada kaalin saddexaad ayuuna soo galay, laakiin markan dagaal adag ayuu sameynayaa isagoo ka cabir qaadanayay in 2018 qaab ciyaareedkii waalida ahaa uu ku sameeyay koobka adduunka finaalkan uu ku gaaray in mar kale uu rajaynayay tigsada kama dambaysta tartanka, laakiin ma aysan noqon oo 10 ayuu kala kulmay xulka Argentina. semifinaalka ayaa lagu reebay. wadankan ayaa la ciyaari doona xulka qaranka dalka lagu magacaabo Morocco ay isku arki doonaan kulanka lagu xaqiijinayo kaalinta saddexaad. labada xulkii adkaada saddexaad ayuu gali doonaa halka kii laga badiyaa kaalinta afraad ee tartanka loo caleema saari doono.